السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامجكي سبورتيغا maanta waxaynu kaga hadlaynaa ciyaarta caanka ah ee la yiraahdo tennis aynu ku horeyno taariikhdeeda tennis waa ciyaar ku dhalatay wadanka Faransiiska qarnigii 13aad kadib intaa wixii ka dambeeyay qarnigii 14aad waxay u soo wareegtay wadanka Ingiriiska taasoo ay noqotay ciyaar boqortooyo oo lagu ciyaaro qasriyada gudahooda boqorradii aadka u xiisayn jiray waxa kamid ahaa Henry 8aad waxa ahayd markii koobaad ee lagu soo daro usha lagu dhufto kubadda qarnigii 16aad halka hadda waxaynu ka fahmaynaa in Faransiiska ciyaartu ku dhalatay laakiin cidda horumarisay ee qawaaniinta u sameysay ay tahay Ingiriisku haddana wuxuu noqday ciddii koobaad ee u qabatay koobkaas oo la qabtay 1877 oo loo bixiyay Wimbledon ilaa imika waa la ciyaaraa waa koob socda imikii haatanna balayno eegna qawaaniinteeda ciyaarta tennis garoonkeedu wuxuu u sameysay sida shakliga leydiga dhererkiisuna wuxuu dhan yahay 24 mitir ballaca garoonkuna wuxuu dhan yahay 12 mitir dhexdana waxa kaga yaala shabag 1 mitir dhererkiisu yahay waxa loo ciyaaraa tennista sidan hal qof oo ka soo horjeeda hal qof laba qof oo ka soo horjeeda laba qof dhibcaha tennista waxa loo tiriyaa sidan waxay ka kooban tahay dhibco xidhmo iyo foorad xidhmadu waxay ka kooban tahay 40 dhibcood halka fooradu ay ka kooban tahay 6 xidhmo sidaad u heshid foorad waa inaad qofka ka soo horjeeda ka sarreysid laba xidhmo isku xiga tennistu inta badan waxay ka kooban tahay 3 fooradood laba kamid ah hadaad badiso guushu adigay ku raacday sidoo kale laba kamid ah hadii laga badiyo adiga guul daraystay marka daawanaysid ciyaarta tennis had iyo jeer waxaad maqashaa choose haddaba waa maxay choose waxa weeye marka labada ciyaarto ay yeeshaan dhibco wada siman 40 iyo 40 haddaba labada ciyaarto si loo kala saaro waxa laga rabaa ciyaartoyga guushu raacaysa inuu la imaado laba dhibcood oo isku xiga sidoo kale waxaad maqashaan double fault waxa weeye markaad gasho laba qalood oo isku xiga sida inaad kubadda shabaga ku dhufato ama aad kubadda weydaariso bogoska laacibka ka soo horjeeda iminkana balayno eegno ciyaartooyada iyo koobabka ugu caansan kubadda tennista koobabka ugu caansan waa 4 waxaana la isku dhahdaa Grand Slam Australian Open Roland Garros Wimbledon iyo sanadka lagu soo gabagabeeyo US Open sidoo kale qofka ku guuleysta hal koob oo kamid ah 4 waaweyn wuxuu helayaa 2,000 dhibcood taasoo sanadka dabiiqadiisa lagu qiimeeyo laacibiinta ka ugu heerka sareeya koobabka waxa kale soo raaca 9 koob oo la isku dhahdo Masters oo iyagana lagu helo 1,000 dhibcood laacibiinta ugu caansan tennista waxa kamid ah Rafael Nadal Novak Djokovic Andy Murray Roger Federer Serena Williams Maria Sharapova iyo kuwii la halmaala